marka koowaad waxaan rabaa inaan hambaliyeeyo shirkadda Tabaarka ICT inay heshay iyadoo Soomaaliya joogta oona ognahay dhibka maamulka iyo quality managementiga lagu qabo inay heshay certificate-kii ISO 9001 runtii waxay tilmaamaysaa sida ay uga go'an tahay inay hagaajiso adeegga ay bixinayso sida Professor Jimcaal tilmaamayna khudwaadka ay qaaday ee ah inay xulato teamka ugu fiican dadka ICT-ga barta waa meelaha ugu adag ama go'aanada ugu adag ee la qaato marka Soomaaliya la joogo ayadoo la og yahay shaqaalaysiinta dhibka lagu qabo Soomaaliya oo kumanaan qof oo si u tihiin ama asxaab tihiin haddaad hal position laga ag sheego ay ku soo ag istaagayaan in go'aankaas la qaato la yiraahdo maye qofka ugu fiican aniga shirkadayda anfacayo runtii waxa aad iyo aad u adag waaye marka horta aadaan ugu bogaadinaynaa anaga waxaan naqaanaa dee jaamacadaha iyo haddaan nahay dadka ka soo baxay oo ayaga ay qaataan sida ay inta ay mariyeen macnaha markhaatiga taagan waa dadka jaamacadaha dhigay macallimiinta oo og waxa ay dadka sida ay u qaateen tan labaad waxaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo inay horta sanadkii 20aad ay jiraan shirkadaha oo startup-iska qaar ahaan ICT-ga waxaa la yiraahdaa 20 sano 10 sano waxaa dhaafa 30% sababtoo ah in fikrad waa la heli karaa shirkadaha startup-iska kow fikrad ka bilowdaan fikraddu sida u shaqeyso waa in la helo team qaada fikraddaas dadka ay ka imaato ama maamulka kaliya maaha teamkan hadda midka hadda laga sheekeynayo kan labaad resource u baahan yihiin waa inay helaan dee wixii lagu socodsiin lahaa laakiin meesha ugu daran ay u dhintaan inta kale 37% ka soo hartay waa inay suuqa la jaan qaadi karaan inay fikradoodu fikrad shaqeynayso oo suuqa gagadiska suuqa ka jirta la shaqeysa inay tahay ayaa lagu kala gudbaa marka fiiriso marka jidka ay Tabaarka ICT ay qaaday bilowgii challenge-ga ay ku bilowday ahayd inay xalliso shirkad baahi ay qabto in macnaha documentation-kii oo manual-ka ahaa digital loo guuriyo yani baahidii koobaad waa laakiin taas waa dhammaane marka dhowr shirkadood u shaqeysid systems waa iska abuurmaa laakiin waxay sameeyeen si ay suuqa si fiican ugu sii jiraan dhankay kale u guureen oo ah ayaga inay ka shaqeeyaan software shaqo abuur macnaha software waa shirkad loo sameeyo maaha software asagu shirkada ka dhex samaysmaan waana meesha ay ku kala hormaraan ICT-ga shirkadaha ICT-ga shirkado waxaa jira oo hadda aad u badnayn adduunka oo unicorns noqdo unicorn macnaha 1 bilyan inuu dhaafo shirkadda markay startup ku bilaabato inay 1 bilyan dhaafto muddo yaroo 4 sano 5 sano marka inay dhaafto shirkadahaas oo dhan markaa fiirisid shirkado kale baahidood ma xalliyaan waxay xalliyaan bulshada baahideeda bulshada ayay waxay u furaan wax bulshadii oo dhan ay u baahan tahay ay ka shaqeeyaan marka sidaas waxay ku helaan billions of customers marka oo adduunka dhan kala joog markaas ay meeshaas ay wax ka sameeyaan marka dadku waxa ku yaraadaan oo dee East Africa joogaan Soomaaliya kasoo joogaan population-keedu iska yar yahay laakiin hadda dhaweeye iyo markay bilaabayeen macnaha ma haysan xalinaynin shirkad X iyo gobolka Banaadir iyo meelo la yaqaan maaha bulshadii xalinay marka midaas inay qaateen runtii waxay ahayd initiative aad iyo aad u baahan oo in la bogaadiyo marka haddana AI imaatay wixii waa double garays oo maxaa la yiraahdaa waxyaalaha aad looga boqol analyze garay waxa kamid ah meelaha qaarkood waxa la inflation ka dhaca cagsiga inay noqdaan oo production-kii iyo dadkii iyo inta shaqadii hal mar laga soo jeesto in wax la qabto la waayo oo suuqii product-kii uu tirada ka bato waxyaalaha AI-da hadda aad laga baqaa inay samayso marka waxa la rabaa inay qiyaas ahaan ardayda hadda dhigato ICT-ga iyo wax la xiriiro ee jaamacadaha 30% loo qiyaasaa macnaha aada fildigaas uu badan yahay 30% marka ku dhufato sanadkii 5 sano ugu yaraan waxaa soo baxda 27,000 ilaa 30,000 oo arday soo baxda jaamacada numberkaas marka ku dhufato waxaa u jeedaa dad badan oo technology la xiriira inay suuqa ka joogaan sanad guuradooda 20aad ICT-ga dadka bartay inay Tabaarka u wada shaqeeyaan 14 iyo 30 laga xulo oo the best-ga ah inay ka shaqeeyaan
inta kaloo soo hartay inay ka dhex shaqeeyaan software ay tabaarig leedahay in horta halkaas xoog la saaro waa haddii ilaahay yiraahdo oo dadka ayagu guryahooda jooga loo abuuro platforms ay ka dhex shaqeysan karaan ayadana ay ka faa'iidi karto revenue ay ka faa'iidi karto marka waxaan leeyahay hambalyo tabaarig ICT waxaa maaragtay tabaarig aad gaarteen waa guuleysateen waa baasteen meeshaas maaragtay kasii wada haddii ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu